السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين السلامة أصحابي سو دوادا meel walba adduunka daafiisa ka wada joogtiin. waxaan idin leeyahay waqtiga idin wacnaado waqti walba idin tahay waan idin soo dhaweynayaa idinkana isoo dhaweeya waa ani iyo markaleente. maanta mawduucan inoo wado wuxuu ku saabsan yahay caruurta sida shaashadaha loogu reebo ama sida u taqaanid telefoonada mobilada iPad-ga TV-yada waxyaabahaas sida looga daayo maanta inoo wada caruurta. boqolkiiba 90 guryaha markaa tagtid waxaa arkaysaa caruurtii oo ku mashquulsan telefoon. xitaa haddii telefoon aysan haysanin haddii adiga aad u martisid xitaa kama ama helayso ilmaha qaarkood. wallaahi waa arkay guryo qaar aan aado haddii mobilkay gacanta ku haystay arkaan ilmaha ma ka hadli kari ma ka sheekeysan kari kuwa qaarkood waxay ku leeyihiin hawar yar iyo dib telefoonkaaga intee kaa qabsadaane ma aragtay sida ugu qaadid dhowda garanaynin hooyadooda ku qaylinos garaacooso. marka koodii hore ayada ayaa bartay marka ugu horeyso kadibna way ka jari laadahay. marka waxaan idin wadaa talooyin oo ku saabsan sida telefoonada iyo shaashadaha looga jaro caruurta uma wanaagsan maskaxdooda. telefoonkaas markay fiirsanayaan ama iPad-yadaas isku mid leh waa intoodiba iyo TV-yadaba intaba isku mid ay u tahay markay daawanayaan uma wanaagsana maskaxiyan uma wanaagsana indhahooda uma wanaagsana caqligooda uma wanaagsana hurdo la'aan ku ridaysaa telefoonka shaashadaha indhahaasna uma wanaagsana aragooda daciif ay noqonayaan. kuwa qaar waxaa arkaysaa indhihi dhan ka wareegsaday subxaanallah. marka sidee baad ugu reebi kartaa cunugaaga telefoonka? hooyooyinka qaar horta waxay leeyihiin intuu haysto telefoonkaas ayaan ammaan ka helaa. marba haddaa telefoonka aan ka qaado guriga waxyaala dhan ayuu qasaa maskaxdiisa kacsan li'annu saas daraadeeda ayuu waxyaabaha u qasaa. ama adigu kuu soo jeesanaa wuu ooynaa ama caruurta guriga ku jeesanaa wuu dilaa maanta dhan inta ka bood inta ka dhac inta wax jiwi maantoo dhan celcelis rafaad qaylo ayuu guriga ku furaa. buuq aan loo joogin ku furaayaan caruurta qaarkood markii telefoonada ama TV-yada laga damiyo oona meel laga dhigo. TV-ga haddaa ka damisid waxaa arkaysaa cunugiyo asiga dhan adigu ku jahwareerinaya. marka waxay isleedahay hooyada ha kanisatidee ugu daar markaasoo 4 sac cunug meesha iska fadhinaa maanta dhan shaashadaas soo fiirinayo hurdo la'aan hurdada oo xiliyada hurdada markii la gaar kaala seex markaa dhahad laguma kara ku dhahay seexashada adigoo asis dagaalo siin la seexin oo seexinaa caruurta aad seexinaysaa. ani alxamdulillah caruurteeda ma yaqaanin telefoon ma barin ba aslan. TV-ga mararka qaar u daaraa badanaa xitaa uma daaro mararka qaar waa markaan u daaran 1 sac ka badan maba u daarabo ama 2 sac marka u badnaata 2 sac ka badan maba u daarnaado waa ka daminaa. remote-kan meel kora ka saaraa oo markaan ka daminayana ayagoo meesha fadhiyo daawanayaan oo si nabad aamusan ma ka damiyo waxa TV-ga waa maaweelinaa. waxaa u keenaa furuud ama fawaakih hadba sida u taqaanid sida cambo ama liimo oranjo canab waxyaabahaas u soo qabana ama timira ugu yar guriga timir lagama waaynayo waxyaabahaas hadii oolin timira u yar timirtiya u soo qaadaa markaasiyo kaalay timirtaas markaa dhaho isla markaa remote-ka ku booda waa damiya. maskaxdoodii way kasoo jeediyeen TV-ga soo maahan marka waa damiya kadibna maba u daarabo. marka sidee uga jari kartaa bataatan telefoonka? an caruurteeda had telefoonkeyga hadduu meeshaas iska yaal xitaa lagama yaabo inay qabsadaan ee fiirsadaan because maba barinba aslan yaraantoodiiba ma barin ilaa hadda way yaryihiin laakiin ma barin. cunug haddaa hal mar bartid telefoonka baraa uga jartid ayawaanaysa sida oo haddee ubadad markii ku cayaarayaan way qabanayaan telefoonka waxaa ku xiran baasweer andan way qabanayaan inay isku sawiraan waa laga yaabaa ama inay meelaha sawiraan meelaha inay duuduubaan waxyaabahaas oo laga yaabaa ama inay ii keenaan intaas ka badan ku sameeyaan telefoonkeygii. hadba waxaa su-aasha ee isweydiinta ay mudan ayaa waxay tahay sidee baan ugu jaraa caruurta? waxaad ugu jaraysaa
subaxdii markay kusoo kacaan quraacdoodii aad siisid aad u nadiifisid tv habu u daarinbo tv noo daar markay ku dhahaan waxaa leedahay qad ma joogo hooyo waxaa leedahay ma shaqeyno tv-gu wuu halaabay kadib waa la cayaaraysaa alaab ay ku cayaaran usoo gad waxyaabaha oo la cajimaayo oo aanan dhiiqada ahayn oo sida kalarada camal usoo gad hadduu uu magaalada uu yaalo waxaa usoo gadaa buug iyo qalin ha ku falaadaan waxay ahay buugagta raqiis waa kuwa qaarkood badanaa raqiis waaye koloraato usoo gad ama sabuurad iyo wax usoo gad qalinkeedii oo wadato oona dharkoodina kala faadsanaynin ayagana maskaxdooda ay u wanaagsan tahay adigana ay kaaga mashquulayaan intaa hooshaada haysatid oo guriga markaad mashquulisid raashin kariskaaga hoolaha kale danahaagiyaad raacanaysa sax markaad kasoo laawatid adana inay kuugu soo jeestaana laga yaabaa kadib waa la cayaaraysaa waqtiyaad siinaysaa intaad ka jaraysidba waqti badan ayaad siinaysaa si aad cunugaasi wax aad uga jartid cunug mar haddaa rabtid inaad bambaas aad ka jartid ama xafaayada waqti waliba waa qabanayid wenjigaad saaraysaa waa kormeeraysaa maanta dhan asiga le indhaha ku haynaya habeenkii markaa seexisid dhowr jeera sukicini 2 jeer 3 jeer 4 jeer ilaa uu la qabsado sidaasaad ku wadaysaa soo maa haddaba markii tviyada iyo shaashadahaas laga jaraayo ilmahan sidaasoo kalaa loo sameeyaa maanta dhan waqtiyaa la siiyaa waa lala cayaaraa sida ay u dareemin tv sida ay u daneynin sida ay u tawinba tv-ga waxaad u sameynaysaa wax waliba oo ayaga ay jecel yihiin caruurta wax ma ahan malaa'ig ma ahan caruurta wax way haleynayaan waxay rafaadsanayaan guriga way ka rafaadsanayaan adkaysi lahaa oo dulqaadkaasi yeelo hooyo waa lama huraan maanta ilaah hooyooyin naga dhigay alxamdulilah intaan haysanin alaha siiyo awlaad baariyaal ah laakiin cunug aanan waxba haleynaynin waxaan dhihi karaa cunugaasi dabiici ma ahan ee wuu xanuunsan mise waxbaa ka qaldan ilmaha si dabiiciga ah waa kuwa wax haleeya oo wax qaso oo wixii adiga ka joog dhahdid oo ayaga aadayaan ilmaha saxda waa kuwaasi ilmo ileen aslan wax way inay haleeyaan waaba jirkoodii yaablo marka caruurta inay wax haleeyaan waa dabiici waxaad u sameysaa waa inaad wadid galabadii oo banaanka aad geysid soo maaweelisid waqti la soo qaadatid oo dalxiisyaal aad u wadid isbuucii 2 jeer 1 jeer waxaa awoodid ilmaha maskaxdoodii way kobcisaa waxyaabahaasi dhan aadin ugu fiican tahay cuntooyinka isku dheeli tiran markaa siisid oo waqti walba aad ayagoo faraxsan aad seexisid duhuradii aad hirgelsiisid ilmaha hirgelsiinta oo duhurada la seexinayo qayb weyn ka qaadataa koriismadooda aad ilmaha oo la seexinayo duhurtii ilmaha aan la seexinin isku mid ma ahan isku jismi ma ahan jirkoodii isku dhaldhalaal ma ahan calaashaan kuwa aanan duhurtii hirgelin jirkoodu wuu qayran yahay asidhan waxaad u moodaa kaanamaa inaadan cunugaasba u qabeynin inuu meel boor asidhan indhihiisi oo kala dheeryahay caafimaadkiisa xitaa mararka qaar taama noqdo ilmaha aan duhurtii hirgelsiinin because koriismadooda hoos u dhacayo ilmaha hurdo fiican inay helaan nasiino inay helaan inaa cuntooyin isku dheeli tiran oo maskaxda kobcinaya aad siisid yaa fawaakihda malaayga waxyaabahaasi dhan maskaxda u fiican tahay oo caruurta ma fahmino marka waxaa kaloo oo marka caruurta waqtisi wax walba waqti aan la siinin laguma intifaacsado waqti markaa siisid waad arkaysaa natiijada kaaga soo baxdo adiga arki doona waana igaaga soo mahad celin doontaa insha allah shaashadaaseetin uma wanaagsana maskaxdooda xiliyadaasi way kacsan tahay caruurta oo shaashada mar waliba sidaasi u haysto markaa ka qaadidna way kuugu oynayaan way ku rafaadsanayaan sasab la cayaar qosolsii wuxuu ku aamus u sameey banaanka gee kasoo faraxsi markaas cunugiyo ku qanacsan wax idaar kumaba ku dhahayo mobile iyo waxaas dhan maba kusoo aadayo dhowr maalin ay kugu qaadanaysaa 2 maalin 3 maalin 5 maalin isbuuc ama week hadba sida u taqaanid intaasi kugu qaadanaysaa
kadibna adiga arki doono cunugaaga inuu kuu noqdo cunug fiican oo maasha Allah oo active ah oo sida adiga rabti mooye si ka wanaagsan inuu kuu noqdo adigaaba arki doontidba markaas. Fiidiyogan intaas in ka badan inuu sii dheeraado ma jeceli asxaabey. Waxaan idin leeyahay fiidiyogan sii share gareeya, walaalihiin la sii wadaaga. Adiga haddii aad ka faa'iiday walaalahaaga la wadaag, xitaa hadda adiga hor u taqaanay aqoon aad u leedahay. waxaa jira dad badan aan aqoon u lahayn sida caruurta wax looga jaro shaashadahaas. marka la sii wadaag insha Allah. waana mahadsantahay. thank you. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.